الرحيم. marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee kililka Soomaalida. waxaan salaamayaa madaxda sharafta leh oo madaxweynuhu ugu horeeyo. waxaan salaamayaa wasiirada, waxaan salaamayaa madaxda sharafta leh oo reer kilil, heer gobol iyo heer degmaba. marka labaad anagoo ah degmada shacabka degmada Wardheer, santarka Kurtunle, qabalaha dhagaxaya caddo, waxaan u sheegaynaa qof kasta oo qusayso, qof kasta oo madaxa mas'uuliyad saaran tahay sida ciidamada sharafta leh oo nuyuuga waanu aqaan farda awliyo waxaan u sheegaynaa iyo madaxda heer kilil annagoo shacabkaas santarka qabalaha dhagaxaya cadda baraagii xunxunka ahaa oo aan caruurta iyo arigu xunka inuu nooga cabaan u qodanay oo magaalada dhagaxaya cadda tuulada ku yaala niman aanu moodayna inay yihiin madaxda dawladda oo madaxdeeda ay yihiin oo kuwa dumarka iyo caruurta aqeeli jiray inay yihiin anagu aanu qabnay haatan san noqday niman shaar qabiilka shan waa cadayna nimankaasi waa gudoomiyaha gobolka oo anaga markii hore noo ahaa suldaan daarood aanu naqaanay inaan guryaha u sharaxno ku soo dhaweyno gabdhaha siino soo dhaweyno aan rabnay haatan sani Ibraahiim oo shaar gasho noqday hoggaanka gobolka anigu magaciisa ma aqaan laakiin waa gacaweyna la igu yiri iyo ina Axmed Xagalo ni Ibraahiim saddexdaan inay ku soo duuleen baraagahaas inay rabaan dadka shacabka ay isku dhuftaan Ibraahiim iyo shacabka santarka qabalaha Kurtunle ee qabalaha dhagaxaya caddo santarka Kurtunle waa dad walaala ah xabad eheliyad halka ay ka sameeyaan shacabku inuu isku dhaco raba nimankaas waxaan u sheegaynaa madaxda sharafta leh waan ka dacwoonaynaa inay dibka naga daayaan dadka shacabka inay isku dhufan nabadgeliyaysan wax gelin baraagtan waa aasaynaa tanaasan sameeyna nimankaas aan dacwo ka nahay hal la ogaado madaxweynaha saasan u sheegaynaa hoggaanka nabadgeliyada kilka saasan u sheegaynaa odan dhaqameedada saasan u sheegaynaa cid kasto wax garada oo dalka iyo dadka iyo horumarka iyo nabadda jecel waxaan leenahay arinta ogaada waxna ka qabto wixii meeshaas ka dhacana nimankaas qaadaya sahlo wa salaam wa mahadsantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh saasan la qabnaa anagu